waa xaalad naadir ah oo lala yaabay tuulada Kiev ee gobolka Kirkuk ee waqooyiga waddankaasi Ciraaq tiro badan oo carruurta ragga iyo sidoo kale haweenkaba waxa ay ku dhasheen iyaga oo timo la'aan ah muddo sanada lama oga ilaa iyo hadda sababta xaaladda loo yaqaan bidaarta ama timo la'aanta carruurtaasi waa mid lagu arkay markii ay dhasheen tiro badan oo dhalinyarada ku nool tuuladaasi waxa ay ku qasabtay in aysan guursan sanadihii la soo dhaafay iyagoo ka baqdin qaba in ilmo timo la'aan ah ay u dhashaan astaamahan ayaa waxa ay noqdeen kuwa si aad ah uga soo muuqday tuuladaasi labadii qarni ee ugu dambeeyay magacaygu waa xasan waxaan jiraa 12 sano malihi wax timo ah anigii carruurta xaafadda waxaan ka codsanaynaa xukuumadda iyo hay'adaha kale inay wax noo qabtaan أنا من صرت ما عندي شعر طالب الحكومة الكاظمي المنظمات والكاظمي كلها تساعدنا ما عندنا شعر مصرنا هذا كله من الوسخ waxaan dhan waxay ka dhalatay wasaq wax laami ah ma lahan xaafadan wax waliba waa wasaq dhibaatada halkaasi ayaan u malaynayaa inay ka jirto وساخة هذا كله وسخ كله يجينا كله ما يوسخ كله وساخة كله شيء كله يجينا وساخة هذا كله وسخ tirada dadka ragga ah ee timo la'aanta waa ay badan yihiin waxaan ogaan karaa ma ahan laakiin wasaqda ayaa aad ugu badan xaafadan mana jirto dawlad arrintaani ka hadashay علاج لها التلوث اللي موجود هنا تلوث عالي ما تقدر توصل الى نتيجه دوله ما تقدر تسوي لنا مجرى مال المي سلام ما تقدر تنظم هالشيء هذا يعني ما نقدر شو نحكي معاناه ما تنوصف ما حد يقدر يعيشها بشر ما يقدر يعيشها الحالة قامت تبدأ عند الأطفال وأكثر يعني من 5 سنوات carruurta dhammaantood ayaa sidan lagu arkay kuwa ka yar 3 ilaa 4 dhibaatada ugu weyn ayaa lagu arkaa waxaan isleeyahay inay ka dhalatay wasaqowga deegaankan aan ku noolnahay قسم يقولون من هالأوساخ وقسم يقولون من هالمبازل هذا اللي فإحنا ما نعرف شنو هالسبب وشنو فهالأطفال خطية شنو ذنبهم اللي يعني حتى يتأذوا يعني من يشوف نفسه هيك يعني بهالحالة فجعل يعني تجي لجان وتجي مدري ايش فما نعرف شنو